بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى أي ما هذا دن وسقنات ونقصي ماي مالين تنوين سنة لبادكون يا لباتن يا لبا بشي وجوه الرئيس مالين تي وجودن بيسي كوي صدام waxaan u mahad celinayaa ugu yaraan beeshay oo hormuud u yahay suldaanka guud ee beesha nabadoonnada jifooyinka soo xulay ergadan milgaha iyo maamuuska leh oo codkooda si aan kala har lahayn mar kale ii guddoonsi runtii garashadiina ayay ku timid qaangaarnimadeyda siyaasadeed oo aan ku hogaaminayo dadka iyo dalka Soomaaliyeed idinkuna aad hormuud iiga dhigteen ma sahlana xaqiiqdii ma sahlana in dadkaaga maalin kasta ku yiraahdaan adiga ma ahay qof kale ma jiro wax saal lagu heli kara ma ilaahay baan uga mahad celinayaa beeshaydan uga mahad celinayaa oo na soo gaarsiisay martabadan iyo mashabka aan Soomaali ugu dhaxmataleen anigana inta raali ka ahaanshiin aad ila daba taagantiin waxaan ballan qaadayaa inta nafta igu jirto inaan heegan idin ah markasta ma ahan 2020 iyo 2 ilaa 25 ama 2000 ee carta iyo kursigan oo haddii alle idmo aydinku matali doono ilaa iyo 2025 horaan u sheegay inaan inta xusulkay xabaal ka sareeyo aan idinka wax idinku ah idinkana idin diyaar ah waad garashadiinu way sii karaar qaaday way sii macno yeelatay beel mudan oo milgale oo aan marti iyo magan weligood noqonin in loo soo martiyo maganna loo noqdo maahe sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxa ay xaqiijiyeen inay dadkeena Soomaaliyeed guud ahaan siyaasadda gudaha inaan wacdaro uga dhigno anoo huwan magaca beeshayda xar Khadiija Maxamed Diiriye ahaan hore ayaan u sheegay yaxar dadkayga oo jecel aniguna aan jecelahay dusha ay saarantay mid kale waxaan rabaa inaan si fiican ugu maamuuso ogaanka guud ee Hirshabelle waxaan joognaa dadka gaar ahaan ergada beesha yaxar dad gobolka Hiiraan ka yimid gaar ahaan degmooyin ka tirsan iyo dad Shabeellada Dhexe degmooyinkooda ka kooban iyo dad ka yimid gobolka Banaadir oo ah deegaanka rasmiga ah howlwadaag Ceel Ibraahim oo aanu leenahay maalmahan waxay halkan u joogeen inay banaanka seexdaan in albaabada furan yihiin marka horena waa u yiri haddana waa ku celinaya ammaan baa ka jira iyo sharci loo jiheeyay jowhar waad u jeedaan jeysh baa ka howlgala aan ka jiifanayn isjacayl walaalnimay dadku ku wada joogaan ha jiro halyeygii u joogsaday oo jiheey guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal waxaan ku faraxsanahay habraaca doorashooyinka in aad si aan ka leexleexad lahayn matalaadda dhabta ah inaad u sheegteen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka labaad beesha shanaad ayaa uu codka Hirshabelle ugu fadhiya beesha shanaadna Soomaali waa taqaanaa waxay ka kooban tahay 4 beelood xuquuq asaasi ah lagu ilaaliyay in dadka beesha shanaad ka soo jeedo in Hirshabelle ay jowhar inta ku tartamaysa iyo inta ku tartamaysa magaalada kale gaar ahaan madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Cali Gudlaawe Xuseen aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa in
deegaankan isaga iyo guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleedba dadka minority-ga aan xuquuqdooda lagu dulminin dad baa waxay yidhaahdeen dad baan ka fiilkanahay waa yaabay waxaan u malaynahay inaan carabaha joogno see wakiil gurigayga la igaga noqon karaa dulmi diide daacada ayaan u aqoonsanahay wuxuuna noo ilaaliyey inaan minority ahaan nolol ku dulminin oo beelo ay soo safarsadeen ay soo qaateen halkan doorasho ku gelin ayagoo bedelaya magaca beesha iyo xar tifiyadana ka sheegay dadaan aniga wakiilka ahaan wadaa see beel dhan wakiil looga noqon karaa aan weligeed marti in maga noqonin ayaga loo noqon jiray minority-nimada 0.5 awood qaybsiga siyaasadeed ee Soomaaliya ah laakiin adinkeena iyo afkeena 0.5 ma aha taas aan ku xaqiijinaynaa hadafka iyo himilooyinka aan rabno waxaan kaloo uga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda Hirshabeelle xuquuqda haweenka oo ah iyadana inay aad muhiim u ahayd golaha shacabka 6 xubnood ee ugu horeysay 3 kamid ah haween inay tahay iyadoo 3 haween hal haween laga leeyahay Soomaali ayuu haddana ku dhiiraday waxaan leeyahay hajiro halyeygii u joogsaday guddiga waa mahadsantihiin matalaada iyo kor joogtaynta waa mahadsan yihiin saxaafaddu waa mahadsan tahay aad iyo aad aan u faraxsanahay ilaahay baana uga mahadnaqayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin